بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها مسلمين تأمير والبودون ذا أتكلم وحن إذنكم سلاما يا سلامة مسلم أو أي إسكو سلاما ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب ولا ليال ما أنت وحربا إن أن ذل وذا وقصر نعضي قصة كمدة قصوينكي هو إنه شيكي نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم هذا الكيس معه كلية إسك هذا إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى نبي صلى الله عليه وسلم الله لو قول أو يراد وحي من الله أي أحد وحنا ليه نبي صلى الله عليه وسلم كان ممن كان قبلكم ضدك إذن كهرية وحجري سدح نين أو سدح ذا نينبو من وحو قبي برس وحالي هذا كركو عبداده جلكاغا أو فيغمو أو متكعد إيقوده كجيرو أو صوبحو من وحو قبي تمالعان عذرك لو يقانو تمالعان تأيو لها أو واحتماء ما وصل لهن متك سدحنا وحاو لها وحاو أها إندور أيو أها أو وحبو وصل أركينين سدح دا سنين أيا جري إلهي سبحانه وتعالى أيا وحاو دوني إنو امتحانو إلهي وحاو دوني إنو امتحانو إلهي الدومدي سواء امتحانا وحو دوني إنو امتحانو مركاسو ملك وصول ديري سيدي ملكنا وحو اسكسور ديجي قف عادي هو بشر أو كله ملك أيا ويمد ملكي مركي ورس وحا ويمد كي برسك قبي كي جبكي سو برسك قبي أو جبكي سو عضاء أيو ويمد مركاسو وحو كيري محادوني سأدوي إلا وصيو أدويو محادوني سا مركاسو وحو يري وحان دونايا إن إلهي سبحانه وتعالى جبكي يسو عليو أو جب نظيفة جب كان ضدك أيون عضين أيون عين إلهي سبحانه وتعالى إنو إنت إقبابيو جب في عنو نظيف إلهي إنو يسيو مركاسو ملكي كعنتي سأيو كما صحي مركاسو جبكي في عناد أو جل عادي النقضي ضدك أيو لم النقضي مركاسو وحو يري حتى بمال محادوني سا تاسي وحي إهد يعافي ماتك أي إهد مال يحورو محادوني سا مركاسو وحو يري وحان دونايا أني هو جيل أيان دونايا مركاسو وحو سيي نيف جيل oo markaasi dhaliinka u dhow oo tobankeeda bilood dhameysatay oo dhali rabto ayuu farta ka saaray Allah ku barakeeyana oo uu yiri oo waa uu duceeyay waana uu ka dhaqaaqay markaasuu ninkii malaga ahaa oo ninkii iska soo dhigay malagii oo nin shakhsi iska soo dhigay waxa uu tagay kii kale ee madaxa la ah ee timalaanta ah ayuu u tagay markaasuu wuxuu ku yiri maxaa doonaysaa adduunyo in lagu siiyo markaasuu wuxuu yiri in Ilaahay subhanahu wa ta'ala tin isoo dhaliyo dadka waxaan ay ugu naceen oo mar walba xiirana ay ileeyihiin in Ilaahay kelmadaas ay dhigtay in Ilaahay tin iga soo saaro intaas Ilaahay iga bari markaasuu madaxii ka masaxay gacantu ka mariyay markaasaa tin jilcan oo madow oo qurux badan Ilaahay u soo saaray subhanahu wa ta'ala markaasuu wuxuu yiri maal maxaa doonaysaa hadaba maal adduunyo maxaa doonaysaa markaasuu wuxuu yiri waxaan doonayaa lo ayaan ku haystaa aniga markaasuu wuxuu siiyay lo iyadana markaasoo kale irmaan dhaho qarka u saaran inay dhasha ayuu siiyay waa uu u duceeyay Allah ku barakeeyo ayuu yiri waana uu ka dhaqaaqay wuxuu u tagay kii indhaha la ayuu u tagay sidii oo kale ayuu ku yiri wuxuu yiri maxaa doonaysaa markaasuu wuxuu yiri Ilaahay ii bari in Ilaahay indhahayga arga in Ilaahay ii soo celiyo markaasuu Ilaahay u bargay markaasuu masaxay markaasuu indhihi iyo argi ay u soo noqdeen kii indho ka ahaa markaasuu wuxuu yiri hadaba maal maxaa doonaysaa markaasuu wuxuu yiri waxaan doonayaa ari aan doonayaa aniga riyo ayaan doonayaa arjir ayaan wurigii ahaa arjirkiga ayaan ahaanaa markaasuu wuxuu siiyay neef riya oo mataqaanay uu u duceeyay Ilaahay inuu wadiyo markaasuu malagii ka dhaqaaqay markaasuu kii geela Ilaahay uu duceeyayna geeli ayaa u batay xoolo badan ayuu yeeshay tobdan oo geel ayuu yeeshay kii lo'dana Ilaaha u barkeeyay lo badan ayuu helay xoolo ayuu helay markaasuu tobdan oo helay kii riida ku duceeyay loogu duceeyayna ari badan ayuu helay tub mataqaana ari ayuu helay وإسرائيل حوله وإسرائيل وين بطين مدكدي مركي أي بطين أو مدوين سوين أي كسوريكتي أرنتي له المامن أيا إسلام ملقي أو نين مسكين أو صعوتاه إسكسور لقي أيا هدنا ويمين وحكوك كسور باللابي كي برسك قبي وكي جرك عداواي أيو ويمين مركز وحكوير نيهو أنيق وحانه نين سفر أو صعوتاه وحان دونا يا هاي يقعد سفر كي أنت أنك جاراي ماشي عربي أنت أنك جاراي وحن كسي جارو نيه إيدي بلاها كودي به ما أنت إلهي في أذيك موياني عدك لو أنا استماله أو ما أنت بدبادين كرتو هبا يراتي ما جرتو مركز وحجري نيه الحقوق كثيرة حقوق
way badan tahay xoolahan aad u jeedid way badan tahay markaasuu malagii wuxuu yidhi niyahow waxaad ba moodaabo in aan ku aqaano oo shalay miyaadan ahayn nin baras qabay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala jir fiican uusan kugu bedelin miyaadan nin faqiir ah oo caala ah aadan ahayn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala maalkan aan arkayso ee badan uu ku siinin markaasuu wuxuu yidhi maya xoolahan aad u jeedid waxaan ka helay can kaabirin awow abka ab dhaxal ayay iigu imaadeen ayay halkan iigu soo gaarin ayuu yidhi dhaxal ahaan ayaan ku helay oo ay sidan ay ku soo gaarin ayuu yidhi subxaana allah markaasuu wuxuu yidhi malagii haddii aad tahay mid been sheegaayo ilaahay ha kugu celiyo sidii aad ahayd shalayto sidii aad ahayd allah kugu celiyo haddii aad tahay mid been sheegaayo waana uu ka dhaqaaqay markaasuu wuxuu u tegey ninkii kale ee xiiranaha ahaa ee madaxa xiirnaa ayuu u tegey intii oo kale ayay isdhaafsadeen oo wuxuu ku yidhi niyahow nin socoto ahaan ahay niyahow sahaygiya iga go-ay ee hal neef aan ku gaaro ilaa iyo meesha aan rabo bal ii dhiib markaasuu sidii kii kale u yidhi oo kale u yidhi war niyahow xoolahan aniga dhaxalaan ku helay xoolahan dad weligood eelo taajiriin ahaa ahayn dad waxaan ahayn aan weligiis faqri aan arkinaan ahayn wahaakada markaasuu wuxuu yidhi war niyahow miyaadan shalay ahayn nin madaxiisu xiiran yahay oo dhiban oo dadku ay nacdaan oo kahdaan miyaanan ahayn oo ilaahay aanu kuu barinin oo mataqaanaaye ilaahay uusan kugu bedelin kama fiican oo miyaadan faqiir ahayn oo ilaahay maalkan aad arkaysa uusan ku siinin markaasuu yidhi maya waxaas ma jiraan markaasuu wuxuu yidhi haddii aad been sheegayso allah ha kugu celiya sidii aad ahayd waana uu ka dhaqaaqay wuxuu u tegey kii indhoolkii u tegey markaasuu wuxuu ku yidhi kii indhoolkii nin yahow waxaan ahay socoto safar ah xoolihii iyo zaadkii iyo sahayii aawatayna wuu iga go-ay waxaan doonayaa hal neef oo ari ah oo aan ku gaaro intii meesha aan raba aan ka gaarayo in aad isiiso ayaan doonaya insha allahu tacaala markaasuu wuxuu yidhi niyahow xoolahan aad u jeedo shalay maana haysanin waxaan ahaa nin indhool ah ilaaha indhaha ii soo celiyey waxaan ahaa nin faqiir ah ilaaha xoolahan aad arkaysa i siiyey meeshaan beertaan dhex gal wax allaala waxaa doonta ka qaado wallaahi inaan maanta haddaad kulli la wareegto halkaasaa kala baxdo inaanan kaa celinaynin ee qaado markaasuu malagii wuxuu yidhi baaraka allahu fiik allah ku barakeeyo xoolahaagana allah kuu barakeeyo adigana allah ku barakeeyo ilaahay baa doonay inuu idin imtixaano adiga waad ku guulaysatay labadaadii saaxiibne waa ay ku dhaceen imtixaankii ayuu yidhi ninkii indhoolka ayaa imtixaankii ku guulaystay oo daacad noqday oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahadceliyey faqrigii uu ka soo saaray indhala-aantii uu ka soo saaray nuurkii uu u sameeyey sidaas daraaddeeda mar walba waxaad ogaataan walaalayaal in dadka ari jirka ah in ay ka ilaahay cabsi badan yihiin dadka geeljirka ah axaadiidaa ku soo aroortay qofka geeljiraha ah inuu yahay qof kibir badan inuu qofka geeljiraha ah uu qof kibir badan yahay axaadiidaa ku soo aroortay qofka ari jirka ah ee ariga raaco ayaa wuxuu yahay qof alla ka cabsiga ay ku dambayso mar walbo sidaas daraaddeeda ayaa waxaad arkaysaa nebi muuse inuu ahaa geeljire nebi moxamed sala allahu calayh wasalam inuu ahaa geeljire uuna dhahaayo nebi ma jirin ilaa waqad raca alghanam nebi ilaahay soo saaray ma jiro ilaa wuxuu raacay oo uu noqday qowsaar wuxuu ka noqday ari jir ayuu soo noqday marka ari jirka fiicnaantaas iyo wanaaggaas ayuu leeyahay marka waxaan ka qaadanaynaa walaalayaal in mar walba la xasuusnaadaa shalay aan la hilmaamin haddii shalay ay kaa dansaneed oo maanta ilaahay kuu nuuriyey waddadii iyo arsaaqdii uu kuu waasiciyey ha hilmaamin shalay sidii aa ahayd maanta shalay xaaladii aad ku sugneed qof dadaa ku sugan dad baa maanta jiro oo ku sugan ha hilmaamin dadkaas sadaqada hala badsado maalmahii waxaan ku jirnaa afdalu ayaamin maalmihii ugu fadliga badnaa ayaan ku jirnaa sadaqadu ay fiicnaan lahayd soonku uu fiicnaan lahaa oo salaadu ay fiicnaan lahayd labalaab ugu samayn lahaa ayaynu ku jirnaa aynu ka faa'iidaysano walaalayaal waa anigoo macalin muusaha oo idin leh inta aynu darsiga xiga aynu ku kulmi doono waa anigoo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalayaal